ka soconay galbeedka gobolka City ee Canfarta waxyaabihii ugu dambeeyay barnaamijkan ku faaqidi doona hadii ay yiraahdo sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa markaas saddex qodob aan soo qaadanay ninkii ahaa Cusmaan Cumar Dool lagu xiray Hargeysa iyo waliba kacdoonkii ka dhashay kacdoon dadweyne oo xoogan baa ka dhashay oo shalay aad ogeedeen maanta baraha bulshada si weyn ayuu uga socdaa haddaba arrintaasna meeshii ugu dambeysay baan asna dul istaagi doonaa 37 sano kadib imtixaanka shahaadiga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la keenay magaalada Laascaanood halkaasi oo ardayda dugsiyada ay ku galayaan barnaamijkan qodobada ku soo qaadan doona hadii ay yiraahdo muuqaalkan la wadaaga saaxiibadeen haddii aan ku bilowno qodobkeena ugu horeeyo ee Canfarta maamahan waxaad ogeedeen in ay ilaahay hada diyaar garow inay ku jiraan haddaba diyaar garowgaasi Canfarta ay ku jiraan saa labada socono Canfarta haddaan dib idin celiyo inta badan de dhulkan hadda ay timid ay joogto waa dhul xadgudub iyo ay ku timid mataqaanay si khasab ah oo federaalka ay ka helayeen u khasbay waxay ku suurta gashay markasta oo Canfarta ay taagroon yihiin iyagu oo ay goob ay qabsadaan waxay sameeyaan inay federaalka u dacwoodaan oo dhahaan weerarada lagu soo qaaday waana la dhameeyay kadibna la kala dhex galo ciidamada kala dhex dhigo oo liya Soomaalida halkaas kama dhaqaaqi kartaan waa waxa u sababay marka in dhulka inta la eg Canfar inay gacanta ku dhigtay laakiin maanta ciidanka dowladda Soomaalidu istiraatiijiyad adag bay mataqaanaa dejisteen istiraatiijiyadaasi ma doonayo in la wadaago waayo wax kasta baraha bulshada lama keeno laakiin istiraatiijiyad adag oo aysan ka gudbi karin Canfar baa mataqaanaa dejiyay wana sababta keentay Canfar ilaa hadda inay ku soo aadi laadahay Canfar waxay qirtay dagaalkan ay ku jabtay maydkoodii baa meel kasta la dhigay la shalomay dhaawacooda warkiisa daa maxaabiista laga hayay war waaki male had maxay bilaabeen marka waxay bilaabeen hay'adaha xuquuqul insaanka kuwooda ugu jiray meelaha intay ordaan inay dhahaan mataqaanaa waana la xasuuqay waana la dhameeyay intay meeyay soo sawiraan inay u geeyaan oo ay dhahaan dhibaatada loo geystay fiiriya taasi hadda bilaabeen oo hay'adaha xuquuqul insaanka hadda ay soo daabacayaan warbixino dhan ka raran inay keenayaan laakiin inaga laftaana dad badan ugu jiro boodyo badan baa diyaarsan oo loo gudbin doona marka ha dhameystaan dhulkaadii ku wado marka Canfar jab baa mataqaanaa gaaray naasabeel baa gaaray xaalku halkaas mataqaanaa maraya fadlan ma dacwoon karaan maanta mataqaanaa ma dhihi karaan waa la jabiyay hadii ay dhahan waa la jabiyay waxa la meeshina jooga iyaga meeshina joogan marka ma dhulkii shalay laga qabsay dib u noqdaan bay rabaan marka dhulka ku noqdaan iyo u suurta gal Soomaalida waxay rabaan dhulka maqan sida Candufta Adayji iyo Garbaciisa in la soo celiyo kuwa hadda la joogsada kuwa kale ee maqan in la soo celiyo yaa la doonaya dad yar oo waxa jira caloosha u shaqaystayaal ah oo Canfarta u shaqeynayay kuwa iyaga in la soo afjarayo iyo badanta laftooda wax la qabto wax kansar ku dhaco mataqaanaa habar u dhinto iyo waxa isku darsan wax mataqaanaa iska cararo halkaas xaalkooda iyagana ay marayaan bal waxaan tagnaa magaalada Hargeysa iyo xaaladda sida ay tahay wali Hargeysa kaliya ma ahan Soomaaliland guud ahaan mabruuca Hargeysa ma waxa dhan oo dalba xaalad way kacsan tahay waxaad ogeedeen maalin dhaweyd in nin la yiraahdo Cusmaan Cumar Dool oo inta badan reer Soomaaliland aadna u dhaliili jiray masabiixi iyo xukunkiisa gacasaar wanaagsan la xisbiga wadani in mataqaanay uu yiri waxaan aadayaa Hargeysa ninkaasi waliba gabar isagu dhalay oo hadda la doonayay oo la rabay in la aroosiyo yaa la rabay inuu bixiyo sababtaas ku keentay marka Hargeysa uu soo noqdo bixitankiisii uu sheegay oo in la soo weerari doono la xiri doono laakiin wuxuu yiri ma weynayo 400 oo wiil oo beesha garxajis ah oo ay dhimato ma weynayo arkaysan shalay Suudaanka guud in mataqaanaa xitaa dhagax uu watay Suudaankiisa miya wixii dhan wax u kala haray ma lahayn ما أحمد ما من كان يسي ما عبد الكريم ما موجا وهو نمبر ما كان هذا شلي وحد على مصيبة ما كان شحالي لا شلي وحكي له سوق ولا وكيل ولا ما كان جرح السباوة يعني كستر على كل حال نك يسجها هو عذر وما كان دقي مصبيح الشلي وحوش يسربه مدحته له بوسو قريه أساس نور ما تكسر ولا عيد واحد اعتبر كم كان بواجين صنت كي يذكر ملحن بيدك الوشو ملحن وحين قد حساس نول إنك الوتوتو يا شرعية نقطي فرها اللي ساري مركا هالك مركي حال أي مرة يسمى مركا
waxaa la bilaabay kacdoon kale oo ku saabsan ninkan dadkii uu cayn jiray ama uu xeyn jiray inay soo kacaan. nin waxaa jiray baraha bulshada ku jiro oo culimada Soomaalida caayo oo caayo xisbiga wadani oo beelaha Soomaaliland maanta cid u daayay aan jirin. Ibrahim Aidid baa yiraahdaa Soomaaliland way soo dhaweysay askar staff siisay gaari loo buuxiyay lacag $50,000 ba matqana cash loo dhiibay oo la siiyay xafladaha loo qabtay. Ibrahim Aidid wuxuu ku baashaalaya Hargeysa madaxtooyada meel kasta maraya. maanta waa hadlay wuxuu sheegay ninkan isaga inuu asaga caayay oo hooyadii caayay oo cid u daa u sameeyay. Ibrahim Aidid habeen maalin wuxuu caayaa beesha garxajis inkasta uu ogi. Ibrahim Aidid habeen maalin culimadu caayaa maanta ugu dambeysay wareysigu bixinay culimadu ku caayay cid u daayay malaha saaso ay tahay waa landheere gaariga staffkaas u haysta cid la hadli karta malahan wuxuu doon u sameeyaa maca salaam. laakiin cid kale meelahan kala ah iyo waxa way afka joogo gabay madaxa laga istaagay halkaas ay Soomaaliland matqanay mareysay. markii arintii ay dhacday oo suldaanki guud xitaa matqanay shalay uu baashka qayb qaatay waxaa la soo baxtay Abu Faysal Ali Waraab waa soo istaagay maanta wuxuu taagan yahayba ninkan Usmaan Umar Dool anigu caayayba aniga maxkamad la fuulayo anigu caayay anigu kan igu sameeyay barnaamij meeshon dhammaanina masla matqanayu la kacay. waayo waxaad ogtihiin ninkan Faysal in uu yahay afhayeenka Musabbixi ninka samatana waa ogaa marka safadan ku shubaa samatana uu ku jiray waligiiba nin wadani ma aha nin mataqaanay inuu tartamo doonayo ma aha xisbiga ka samaystay oo gacan ku samayska ah meeshu doono la maraa wuxuu doono kaga qalabtaa cidiisa mataqaanay ku bahdilay waka oday halkaas ka dhacay. bal intaas aan kaga dhamaana marka Somaliland iyo xaaladdeeda guud bal aan tagana dhankaas iyo koonfur iyo waliba qoyba joognay aan tagana Laascaanood iyo waxa idan ka jira 37 sano kadib maanta waxaa la sheegay imtixaanka shahaadiga ee dowladda federaalka Soomaaliya in diyaarad lagu geeyay ardayda ay gali doonaan. gooni bal soo dhawaad intaas iyo war bidhaan oo maasan tahay wasaaradda waxbarashada SC Khartoum ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnayd magaalada Muqdisho waxaana hadda la qaadayaa oo ka socda qayb ka midna laga qaaday ardayda imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 12aad haddana waxaa laga qaadi doonaa dhanka ila Laascaanood warqadihii ee dowladda imtixaan ku qaadaysan halka ay laga dajiyay 3 sano la soo dhaafay Puntland kama aysan qayb galin imtixaanaadka shahaadiga dowladda maadaama dowladda iyo Puntland isku dhacsanayeen. hadda laakiin waxa si toos looga qaadayaa SC Khartoum waxaana wax ka qaadaysa wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddi oo markaas u xilsaartay wasaaradda waxbarashada SC Khartoum. halka marka waxa ka dareemi kartaa in SC la aqoonsaday oo maamul madax banaan ay noqdeen. waxyaabo kale ayaa jiro safarada ayaa lagu daray oo dibadaha ah waxaa lagu daray kulamada gudaha shirka wada tashiga amniga lagu daray waxyaabo badan SC Khartoum hadda ka qayb qaadanaysa. marka dowladdu waxay sheegtay hal shuruud ay hor taagan in lagu dhawaaqo kaliya aqoonsigooda waana in laba gobol oo nadiif ah ay keensadaan sababtoo gobolka Soolna waa lagu haystaa waxa ku haysto nimankan Somaliland gobolka kale ee Sanaagna Somaliland iyo waxa ku haysto iyo nimankan ayagana maxaa la yiraahdaa Puntland dhan kale ayagana Cayn gobolka Cayn waa gobolada hore dib laga sameeyay waa gobolada hore ma aha. marka waxa laba gobol iyo wixii ka badan la ka rabaa almuhiim laba gobol oo degmooyinkooda 90 gaaray oo adiga degmooyin badan laga rabo ayaa la rabaa inaad keensataan. marka hadda waxa way SC Khartoum waxyaabo badan u socdo step ah mar dhowna waxa lagu dhawaaqi doonaa madax banaanidooda oo rasmiga ah hadda qadar fadhiyo markuu tagay Muqdisho dhahay fadhiyo muxuu ka doonayaa dowladdu wax ma sameyn doonto laakiin hadda oo jeeda sanad soo socda ciyaaraha oo ka qayb gali doona SC Khartoum. marka waxa la SC Khartoum wada fiican qaaday inta soo hartana waa dhameystiri doonaan dhawaan. waa maasan tahay daawada inta barnaamijkan aan kusoo afmeerina wixii insha Allah ka soo kordha arrimaha aan ka hadlaynayna halkan ayaan kula wadaagi doonaa muuqaalkan la wadaaga saaxiibadii.